maanta waxaynu ka hadli doonaa nebi ka mid ah nebiyadii Ilaahay subxaanahu wa tacaala u soo diray dunida. nebigii ugu samirka badnaa, ugu dulqaadka badnaa waana nebi Ayuub calayhi salaam. bilowgii nolosha nebi Ayuub calayhi salaam wuxuu ka mid ahaa ambiyada uu Eebbe siiyey sharaf weyn iyo imtixaan weynba. waxa uu ka dhashay qoys nebiye ah, waxaana laga soo xigtay inuu ka tirsanaa farcankii nebi Ibraahim calayhi salaam. deegaanka uu ku dhashay wuxuu ahaa meel deggan oo barwaaqo leh, dadka degganna waxay ahaayeen kuwa wanaagga jecel. Ayuub wuxuu lahaa hanti aad u fara badan, carruur badan, xaas wanaagsan iyo caafimaad buuxa. marka lagu daro sida uu Ilaahay u siiyey hanti, waxaa ka sii muhiimsanaa iimaanka, cibaadada iyo shukriga joogtada ah ee uu Alle u muujin jiray. xoolihiisa waxaa ka mid ahaa geel, ido, lo, fardo iyo addoomo. beero badan oo miro lehna wuu lahaa. laakiin wuxuu kaga duwanaa dadka kale inuu ahaa nin aanan isil yeelin. wuxuu ahaa mid dadka masaakiinta ah wax siiya, dadka tabarta daran ka warhaya, waana sababtu ay dadka ku jeclaayeen wanaaggiisa. dad badan waxay u arki jireen ninkan nasiibkiisu waa uu gaaray, laakiin Ayuub wuxuu ogaa in wax walba uu haysto ay yihiin nimco Alle. wa in tacudduu nicmatallaahi laa tuxsuuhaa, haddii aad tirisaan nimcooyinka Eebbe ma tirin kartaan. xaaskiisa waxay ahayd haweenay iimaan iyo akhlaaq leh, waxayna si dhab ugu garab taagneed ninkeeda, si gaar ahna ugu adeegi jirtay dadka saboolka ah. Ayuub wuxuu ku noolaa nolol deggan oo farxad leh, ma jirin maalin uu seexdo isagoo aan Alle u mahadcelin. laakiin si Alle ugu muujiyo dadka kale inuu Ayuub uu yahay addoon samir badan, waxay bilaabatay tijaabo. waxaa bilaabatay guux dadka sheegayay haddii uu hantidiisa waayo ma cibaadaysan doonaa. sidaas darteed Alle wuxuu go'aansaday inuu tijaabo geliyo. wuxuu rabay inuu ummadda tuso inuu Ayuub yahay addoon daacad ah, ma ahan mid barwaaqo keliya Ilaahay uu cibaadaysta oo u tasbiixsada. axasiba annaasu an yutrakuu an yaquuluu aamannaa wahum laa yuftanuun. dadku ma waxay moodayaan in la dhaafi doono markay yidhaahdaan waan rumaysannahay iyagoo aan la imtixaanin. maalin maalmaha ka mid ah ayaa musiibo dhacday. dab ayaa kacay, xoolihii waxay noqdeen wax gubtay iyo qaar cudur ku dhaca. beerahii uu lahaana roob ayaa burburiyey. waxaa xigay in carruurtiisii qaar geeriyoodeen. dadkii uu caawin jiray waa ay ka leexdeen. laakiin Ayuub wuu samray. wuxuu yidhi, waxaan ahay addoonkii Alle, waxa uu iga qaaday isaga ayay u laabanayaan. aladiina idaa asaabathum musiibatun qaaluu innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. kuwa marka musiibo timaado yidhaahdaa, annagu waxaan nahay kuwa Alle uu leeyahay, isaga ayaana u noqonaynaa. markii hantidiisii dhammaatay, Ayuub weli wuxuu ahaa mid dulqaad leh. Ilaahay wuxuu rabay inuu tijaabo kale ku daro, xanuun jir ahaaneed, imtixaankii ugu horreeyey iyo go'doominta dadka. kadib markii uu waayey hantidiisii, carruurtiisii iyo bulshadii, imtixaankii ugu cuslaa wuxuu noqday xanuunkii uu ku dhacay, xanuunkii jir ahaaneed. Alle wuxuu tijaabada u xoojiyey si uu addoonkiisa runta ah ugu muujiyo samirka iyo tawakkulka ay leedahay nafta ay hoggaaminayso iimaanku. nebi Ayuub calayhi salaam wuxuu bilaabay in jirkiisii bararo, maqaarku dilaaco, jirkiisa oo idilna ay nabar ka soo baxaan, laakiin qalbigu wuxuu ahaa mid sugan. innamaa yuwaffa assaabiruuna ajrahum bigayri xisaab. kuwa samra waxaa la siin doonaa abaalgud aan xad lahayn. xanuunku wuu faafay. dadka deegaanka ah oo horey u dheefsaday khayrkiisa waa ay ka leexdeen. waxay ka cabsadeen in cudurkiisa uu yahay mid dilaa ah. wuxuu noqday nin liiska fogeeyey. guri ku yaal meel gooni ah waa lagu xareeyey. waxa uun la joogtay xaaskiisa oo keliya, taasoo weli u adeegaysa, u nadiifinaysa, una ducaynaysa. ma jirin qof kale oo yimid. wuxuu la hadlaayay daruuraha, cirka iyo rabbiga uu caabudayo. wasbir fa inna allaha laa yudiicu ajra almuxsiniin. samir, maxaa yeelay Eebbe ma dayaco abaalka kuwa wanaagga fala. maalmo ayaa galay toddobaadyona bilo. sannado badan ayuu xanuunsanaa isagoo aaminsan in imtixaanku yahay qayb ka mid a qadarta Rabbi.
dadku waxay yidhaahdeen, ninkan Rabbi wuu ka carooday, laakiin Ayuub marna erey xun ma odhan. Rabbi baa ii doortay imtixaankan. Waxaan ku kalsoonahay inuu i arko, naxariistana ay la jirto. Allahu latiifun bicibaadihi yarzuqu man yashaa'u wahuwa alqawiyyu alcasiiz. Eebbe waa naxariis badane oo u ron addoomihiisa, wuxuuna irsaaqaa cidduu doono, isaga ayaana ah mid awood badan oo xukunka leh. Xaaskiisu, haweenaydaas naxariista badan, waxay bilowday inay shaqooyin hoose ka qabato magaalada si ay daawo iyo cunto ugu keento ninkeeda. Qaar baa u gafay, qaarna waxay u sheegeen inay iskaga tagto, laakiin waxay lahayd, waa ninkayga, nin Ilaahay jecel, ma ogid maalinta Rabbi nimcadiisii ku soo celin doono. Markay xaaladdu xumaatay, Nebi Ayuub calayhi salaam wuxuu Alle u baryey keligii, codkiina wuu hooseeyey, balse kalsoonidii way weynayd. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. xusuusoo Nebi Ayuub calayhi salaam markuu rabbigiisa baryaayey, dhib baa i taabtay, adiguna waxaa tahay kan ugu naxariista badan. Wuxuu rabay raalli aanshaha Alle, intaasna waxay tusaale u tahay dhammaan dadka imtixaanka ku samra. Nolosha Nebi Ayuub calayhi salaam waxay gaartay heer dadka ay ku jeesadeen, hantidii dhammaatay, jirkiisii xanuun dildilaacay, carruurtiisana waayey. Dhammaan mushaakilaadkii nololeed ayaa dusha uga dhacay, laakiin halkaas qalbigiisa waxaa ku haray oo keliya hal shay, waana xiriirka ula lahaa rabbigiisa. Isagu ma uusan lumin iimaankiisa, ma uusan eedeynin Eebbe, ma uusan ka caban. Samirkaas dartiisa Alle wuxuu ka dhigay mid tusaale u ah addoommadiisa dhabta ah. Markii Rabbi ka aqbalay ducadiisu, mucjiso ayaa dhacday. Waxaa loo sheegay inuu cagta dhulka ku dhufto, biyo ayaa ka soo burqaday. urkud birijlika haadaa muqtasalun baaridu wa sharaab. Ku garaac cagtaada, kani waa biyo qabow oo lagu qabaysto lana cabo. Qubays qura ayuu sameeyey, xanuunkiina wuu ka baxay. Waa mucjiso Rabbi siiyey addoonkii u samray. biyahaas waxay ahaayeen daawo jireed iyo mid qalbiyeedba. Xanuunkii wuu ka bogsaday, wuxuu noqday nin jir ahaan, maskax ahaan iyo ruux ahaanba caafimaad qaba. Laakiin taas keliya ma ahayn, wuxuu Rabbi ku helay abaalgudyo aad u fara badan, carruurtiisii, xaaskiisii iyo hantidii oo la siiyey tii la mid ah ama inka badan. wa aataynaahu ahlahu wa midlahum macahum. waxaan siinay ehelkiisii iyo kuwo kale oo la mid ah. Nebi Ayuub calayhi salaam wuxuu noqday tusaale dadku ay jeclaadaan, qur-aankana lagu xusay. waa inaan ka baranaa inuu Rabbi mar walba maqlo ducada. waa inaan ka baranaa inuu Rabbi mar walba uu maqlo ducada addoommadiisa, xitaa haddii uu wakhtigu dheeraado. xusuuso, Nebi Ayuub calayhi salaam wuxuu xanuunsanaa sannado badan, laakiin ducadiisu waxay ahayd mid daacad ah. wuxuu helay caafimaad, xasilooni iyo niyad sugan. waman yatawakkal cala allaahi fa huwa xasbuh. ruuxii Alle tala saarto, isaga ayaa ku filan. xaaskiisa daacadda iyo naxariista badneed intii uu xanuunsanaa, cidda keliya ee Nebi Ayuub calayhi salaam la joogtay waxay ahayd xaaskiisa, haweenay samir badan, qalbi wanaagsan, Alle ka baqaysa. iyadu ma aysan ka cabsan cudurkiisa, mana aysan ka cararin saboolnimadiisa, wayna u adeegaysay. maalin kasta waxay u keeni jirtay cunto, biyo, daawo ay ugu raadisay meelo fogfog. dadka qaar waxay kula taliyeen inay iskaga tagto, waxayna yidhaahdeen, maxaad ugu adeegaysaa nin dadka laga fogeeyey? laakiin iyadu waxay tidhi, wuxuu ii ahaa ninkayga markii uu caafimaadka qabay, maanta uu ugu liito ma dayacayo. waalmu'minuuna waalmu'minaatu bacduhum awliyaa'u bacd. mu'miniintu, ragga iyo dumarku, waa kuwa istaageera. qisadan waxaynu ka baran karnaa in xanuunka iyo go'doominta aysan ahayn caro Eebbe, in xaaska wanaagsan ay tahay tiirku garab taagan mar walba, in ducada xasiloon ee kalsoonida leh ay tahay furaha naf kasta. Rabbi waxaan ka baryaynaa inuuna siiyo samirka Nebi Ayuub calayhi salaam iyo mid la mid ah xaaskii uu qabay Ayuub calayhi salaam, iyo qalbiga daacadda ahaa. allaahumma aamiin. haddii aad ila joogto ilaa dhammaadka, waxaan kaa codsanayaa inaad sii shargarayso lana wadaagto asxaabtaada. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.